Bismillahirrahmanirrahim. Anigoo ah magacayga Asad Abuukar Cabdiraxiim waxaan ku noolahay wadanka Canada gaas ahaan Medicine Hat gobolka Alberta. Waxaan imid 2021 bishii September 21 December oo maalin ay tahay Jimco ayaan halkan ku soo degay Medicine Hat. Alxamdulillah ilaaha mahad iskale inkastoo aan soo arkay duni walbo meel walba ahaato sida Sacuudiga soo Suudaan dhibaato walbaan soo maray laakiin inta wadan aan soo maray maanta waqti aan la joogo Canada wallahi meel aan ka doorsanayo xilligan hadda la joogo ma jirto. Canada waa soo dhaweysay ama ha ahaado qaxootiga UNHCR-ta markaan wadankan imaanay Alberta gobolka Alberta Calgary markaan ku soo degay Medicine Hat leekan dawladana caawisay oo maanta wax walba noo sameysay alxamdulillah. qofka cusub wadanka imaana wuxuu ka faa'iidi karaa waxyaalo badan ka soo qaat sida hadda aan ku sheegayo wadanka marka imaaday dawladda ay caawisay taada kale waxaan sheegayaa iskuul waxaan gala dhahay Pin Home Service wadanka marka imaanaysto waa inaa shaqada ku raadsaa warqad la dhahay residentigaas 4 bilood aan soo dhigtay shahaadaan qaatay warqad markii la sameeyay alxamdulillah sidaan shaqada ku helay ilaa hadda sidaan ku shaqeeyaa after 4 months 6 months waxaan helay gaariyan gatay alxamdulillah sidaan wadanka ugu shaqeystaa dadka imaanayna waxaan jeclaan lahaa situation wadankaana waxay tahay nidaamka nin walbo shaqo haduu rabo ama iskuul haduu college rabo anyway almuhim dawladda caawinaysa dawladda insha Allah inaka marka imaadaane kulli qaar waxay jecel yihiin iskuulkooda inay bartaan qaar jaamacad qaar college jecel qaar shaqo jecelin qaas aan iskuulna galo ka dambaan dhigtaa kalinka dambaan dhigtaa kalinka horna waa soo shaqeystaa talada soo jeedina waxay tahay Soomaalida hadda imaanaysa kulli horta dib mal kulmeysaan insha Allah dib arkimeysaan laakiin haduu Ilaahay nii keeno kulli nin walbo situation uu leeyahay nin walbo jadwal u degsan jadwalkiisa waxaan Ilaahay ka baryaa inuu Ilaahay ku caawiyo laakiin waxaan dhihi lahaa meeshan hadda imaadaan qaas ahaan ani kulli gobolada way badan tahay Canada way badan tahay si Vancouver oo kala jirto British Columbia jiro way badin Ontario jirto aan Alberta gobolka Alberta aan joogaa oo qaas ahaan Medicine Hat dadka imaanaya kulli ninba gobol la geeyaa laakiin gobolka aniga aan joogo alxamdulillah ma sha Allah ku qanacsanahay dadka imaanana waxaan jeclaan lahaa in marka imaadaan indhiin waxa ku aragtaan ama waxbarasho ahaado ama dhinac walba hada Canada kulli waa wadan fiican aad u fiican magaaladan Medicine Hat horta waa Medicine Hat marka ko aan maqlay wadankan marka la yiraahdo asadoo miya aha Canada waxa ku qaadatay waa ku farxay horta ko alxamdulillah waxa la yiraahdaa maalin dambe waxa la yiraahdaa Medicine Hat medicine maleen jiri waxaan kaniiniyan iyo daawooyinka soo Medicine Hat Alberta ka tirsta la yiraahdaa saad waliga ma maqlna eri hay igee markan imaade wallahi billahi allah ku ilaahan ku mahad ku shukri alxamdulillah taagana Medicine Hat meel lagu doorto Canada ahaan aniga ma maleynay laana xog fiican tahay dhanka family koode ama waxbarashada ha ahaato ama passportka si ilaahay ku fududeyn lahaa ama shaqo ha ahaato anyway inta kale wax cid kugu soo jaamis ma laha maanta booliska dhahdo niyo waxaan rabaa inaan ismeesayo ku leeyahay maanta cid ku wax gudbeysa ma laha wadankan Medicine Hat wadankan Canada qaas ahaan Medicine Hat meeshan joogo Allah aad u fiican tahay Medicine Hat kulli dadka Soomaalida waxaan jeclaan lahaa dad qaarkood way ka cararaan laakiin aniga kama cararna si lii keenay wadankan Medicine Hat gobolkan ilaa hadda ku taaganahay Medicine Hat